xafladda lagu caleemasaarayay suldaanka guud ee Soomaalida Sweden ayaa ka qabsoontay magaalada Fekho waxaana munaasabadani ka ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ka soo qayb galay waxgarad iyo waayeel tiro badan waxaana dadkii badnaa ee kulankani ka hadlay ay ku dheeraadeen muhiimadda ay u lahayd xilligani doorashada hoggaan dhaqameedkan cusub kaasi aan hore uga jirin dalkan Sweden waxaanay ballan qaadeen inay si weyn ula shaqayn doonaan Suldaan Yaasiin Yuusuf Jaamac Raale oo isagu si rasmi ah maanta loo caleemasaaray waa nin karti badan waa nin odaya waa nin mas'uul ah waa nin u leh firfircooni iyo waxqabad u leh xagga arrimaha bulshada dhaqankeena u leh weeye waana midda maanta asaga loogu dooranayo in suldaankii uu noqdo aad baan u soo dhaweynayaa horta waxaan leeyahay xilka lagu saarayo ilaahay ha kuu fudaydiyo ilaahay kuu fudaydiyo nin xil qaaday eed qaad marka Yaasiin waxaan rajaynayaa insha Allah inuu qudwad xasana noo noqon doono oo Sweden unan gaarto fikir gaaro oo ah in dhaqankii la soo celiyo runtii waa dhiqaad weyn oo qaadi kara arrinkaas oo dhan runtiina intii aan la socday yareed waxaan ka bartay aniga laftaydu gurba joog baan ahaa nolosheeda oo dhan inta badan waxaan ka bartay dhaqanka iyo mataqaanaa sida loo hadlo iyo sida mataqaanaa loo doodo waxyaalo fara badan baan ka bartay marka Yaasiin waan uga mahad celinayaa inuu bacd intuu inoo imaaday kadib wax badan oo kala taagnaa inuu isku imaaday asna uu wax ka bilaabay shanta Soomaaliyeed aan rajaynayno inaan oga sii gudubno islaamka in maad aragtay suldaankaas aad loola shaqeeyo la garab joogsado keligii waxba ma qaban karayo min aad baan ugu faraxsanahay maadaama dhaqankii aynu helay boqolkiiba boqolna waan soo dhaweynaynaa suldaankana waa ugu duceynaynaa in ilaahay xilka uu u fududeeyo waxaan baliyeynayaa una duceynayaa suldaan Yaasiin Yuusuf Jaamac Raale suldaan Yaasiin Yuusuf Jaamac waa xiddi godkiisii helay ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu ilaahay ku asturo xilkaas caleemasaarka marka la yimaado kelmadaynu lahaan jirnay khaas oo ah caleemasaarka Yaasiin waxaan leenahay kugu maalay soo dhaweynaya waan hambalyeynaya suldaanka Yaasiin Yuusuf Jaamac ayaan aad iyo aad u hambalyeynaya waxaan rajeynayaa runtii in ma garanaysaa suldaanku uu kulligay sugay keeni karo meesha kaliya inaga maqnayd waxay ahayd arrimaha dhaqankuna wuxuu insha Allah suldaanku uu xooga saari doonaa sidii guud ahaan dadka Soomaaliyeed loo mideyn lahaa istaagayna ilaahay dartii baan ula shaqaynaynaa insha Allah ta'ala dacwad buu bilaabayaa ilaahay diintiisa inoo yeelaya dhaqankeena wanaagsan buu inoo yeelaya markasta inaan la shaqeyno iyaan ilaahay suldaanku amaan uma baahna wuxuu baahan yahay in la shaqeeyo oo aynu garab istaagno geestiisana waxa caleemasaarkiisa kadib munaasabadani ka hadlay Suldaan Yaasiin oo uga mahad celiyay dadka xilkan u gartay waxaanu ballan qaaday in si daacadnimo ay ku jirto ugu adeegi doono bulshada Soomaaliyeed ee dalkan Sweden alayhi wasallam ama bacda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh اولا الحمد لله على كل حال اله وما هذا سبحانه وتعالى اله halkan isugu keenay maanta noocan oo kale markay tahay saddex qodob baa ninka suldaanka ama la doorto u taala waa mahad celin iyo dardaaran iyo duco awalan waxaan idinka mahad celinayaa sida aad iga soo qayb gasheen xafladan aad igu calama saarteen aad ii idmateen anigoon cilmi diimeed iyo mid aqooneed mid maadi midna aanay dheerayn intiinuba iga cilmi badantihiin igana mudantiin xilkan maanta aan isu taagay aad ugu sharafteen oo ii haniyeyseen oo ay ka turjumayso waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclow waxaan idin leeyahay dhammaantiin rag iyo dumar jisaakumullahu khayra jisaa ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro ilaahayna ha idinka abaalmaray baan leeyahay bismillaahi kariim laba masala ii yaalo horta mar waa naxdin qodobna waa farxad waa naxdinoo nin isu taagay shanta Soomaaliyeed oo yidhi suldaan baan noqonayaa culeyskeeda bay leedahay amaanaduna ilaahay xaggay kaga jirto waad ogtiin cirkaa diiday oo dhulkaa diiday baa liyi bilaadima si qaatay bilaadigi baan kamid ahay ilaahay inuu asura amiidhaha ilaahay inuu asura amiidhaha waxa li wax matara ma jira wax tara jira waxaan idin sheegayaa inaana nin kasta oo halka fadhiya iyo qof kasta oo maqan oo Soomaaliyeed nimaan dib ku hayaan jirmida wax tara mooyaane afiyaadina gacanba waxaan soo kordhay waa khayr waxaan leeyahay runtii aad iyo aad baad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad
waxaan halkan ka ballan qaadayaa oo ilaahay horta ka ballan qaadayaa horta mid iga filamaysaan horta qabiilka wax waa tacaaruf baa qabiilka ilaahay baa inoo doortay inaan isku garanno sida xawaayankan la isfulino qofku eedadii iyo habartii iyo abtigii iyo adeerku garto laakiin sida inuu isticmaalay qabyaaladda horta ani qabyaaladii ugu imanaysaan qabyaaladii ugu imanaysaan ilaahay baanan ka magan galay ilmahan dhalay iyo ilmahan nin kale Soomaali dhalay inaan u xaq sooriyo oo aanu kala xanayn inta diintu iga siisay mooyaan inta diintu iga sameeyaan wax kastoo aan qabanayana intaan adduunka ku noolahay aakhiradeedan eegaya wixii aakhiradeeda dhib ku ah qabanba maayo geliba maayo horta taas waa taa waxaan kaloo idiin sheegayaa aniga yaasiin ahaan qofka bilaana hankiisu waa fogaya waxaan farxad iyo ammaanta oo aad runtii aan ugu faraxsanahay mar haddaan hogaamiye kooxeed iyo suldaan yar iyo caaqil yar oo qabiil yar lay magacaabin oo deegaan lay magacaabin ee aan Soomaali madaxa ku qaatay taasa guuliya aniga guul waxay inaan Soomaali suldaan u ahay oo Ismaaciil Cumar Geela suldaan u ahay farmaajo u ahay biixi u ahay cagjar u ahay suldaankooda ahay maanta taas aniga guuliya waxaan leeyahay shacabku waxaan ka codsanayaa madaxdaas aan magacaabay iyo qolada MFD madaxdeedaba inta waynu maagnaa Facebook iyo YouTube-ka waa madaxdeena ha loo duceeyo waa madaxdeena haddaynu cayno oo maagno dhibaato bay nagu hayaane haddaynu ducayno Ilaahay bay noo hagaajinay duceeya oo diinteena faraysta qofka mas'uulka in la adeeco waa diiniye weeye taana saasan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantiin Ilaahay waxaan ka rajaynayaa bidmillaahi kariim Ilaahay dambigeena ha dhaafo kii waalidkana la dhaafo khaatumada khayr Allah inuu ku khatimo xanuunka corona ee dadka laayay intii dhimatay Allah u naxariisto inta iminka ka bad qabtana Allah ka hayo inagana mukhaalifa Allah isu keeno Ilaahay mukhaalifada bogana burcad isu mariyo waxaan leeyahay Soomaali meel ay joogto waa walaalnimada iyo midnimada aad keeno anigu siyaasi mihi siyaasadna ka hadli maayo waxaan kaloo umada Soomaali maanta u sheegay mar haddaan cimaamad qaatay koofiyad qaatay intay maagaysay caayisa badan if aakhir istaan xweegti kii alla kii caayo istaan xweegti kii wax iga sheegay istaan xweegti kii alla kii wax iga sheegay if iyo aakhiro maadaama xil qaaday haddaan doonayna waxba leega sheegay gurigayga joogi lahaa islaanteeda shati ciyaar la joogi lahaa aniga banaanka si soo taagay kii alla kii wax iga sheegay ee maaga aakhiro looma haysto ilaahay hortiban ka cafiya hadeerba wax alla wuxuu doonaa ka sheego aniguna waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin shaqeeyo midnimadiida qof walba saaxiibkay baa tahay adeerkay baa tahay walaalkay baa tahay haddaad mijaan Ciise ugu aragtaan meesha hawlan nimankaas la shaqeynaya nin walba la shaqeynaya nin walba waxaad u baahan tahay haddaad iga weyday qabso wixii awoodeeda iyo taalkayga waxaan ballan qaadayaa furooni kasta haado jaaliyad kasta meel kasta deegaan kasta haado cid kasta haato inaan la shaqeeyo af iyo adiya gacan maalkayga inaan raaciyo baan ka ballan qaadayaa ilaahay saasaan idinka baryaa bismillaahi kariim waxaan ka cudur daaranayaa runtii dad badan baa runtii lagu xidhay albaabka inta waa laga badan lahaa systemka dalku waxa weeye konton qof in la isugu yimaado kontonkina waan ka badannahay inaan runtii hadda waxaan ku jiraa xagga dawladda arrin baynu ku jiraa khadaca oo lagu qabsan karo 100 baynu ku dhowdhownahay aad iyo aad inaan isaga soo gabagabeynaa muhiima aad baad mahadsantiin dhammaan waxaan idin leeyahay aakhira filjan ilaahay jannada ku saaxiib Allah inaga yeelo ilaahay isku jannada ku saaxiib Allah inaga yeelo kuwa ismaqlana Allah inaga yeelo ilaahay raxmadiisana Allah ina siiyo dalkeena iyo deegaankeena Allah barakeeyo dawladeedana Allah inoo barakeeyo shacabkana Allah inoo barakeeyo culimada inta diinta faafinaysan Allah inoo barakeeyo sidaas ay noogu duceynaa jazakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh